بسم الله الرحمن الرحيم marka hore shacabka Soomaaliya waa salaamaya meel kasta ay dunida dacaladeeda ka joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan marka xiga waxaan rabaa inaan idin la wadaago arrin yar oo ah sidaad la socotaan dawladda Turkiga oo ah waddanka kaliya ee noo gargaaray xilligii ay Soomaaliya dhibaatooyinka ba'an ku jirtay la soo garab istaagay hiil iyo hooba waxtar fara badan dhinac dhaqaale iyo dhinac nabadgelyo wax walba kala shaqeeyay dawladda Soomaaliya xoogana saaray inay ka soo kabsato burburkii ilaa haddeerna dadaal joogto ah la garab taagan dawladda Soomaaliya walaalaheena Turkiga waxay aad iyo aad dhinac walba isku dayeen inay soo celiyaan sharafkii iyo karaamadii Soomaaliya lahayd carabina waa ogtihiin meesha ay dhigtay ilaa haddeer waxa ay carabtu doonayaan inay Soomaaliya majaraxaabiyaan oo ay kala diriraan dhinac walba iyagoo danahooda eeganaya waxaan marka idin farayaa shacabka Soomaaliya haddaad damiir leedihiin ilaah baan idinku dhaariyay oo aad dadnimo leedihiin carab ha loo jaro horta ganacsiga xiriirka ganacsiga ugu horeeya ha loo jaro Soomaaliya meesha ay ka ganacsataa waa carab u bedela ganacsatada Soomaaliya inaad xooga saartaan inaad Turkiga la yeelataan ganacsi oo aad wax walba ka doonataan carabna aad u jartaan xiriirka ganacsiga wax aad ka keentaan aanaba jirin wax loo dhoofiyaan ayay jirin xoolahan maalin walba la soo celinayo la leeyahay waa loo dhoofiyay dib u soo celiyeen wadamo badan oo u baahan baa jira in la fogeeyo xiriirka ganacsiga oo kor loo qaado carab in laga gudbo ganacsigeeda iyada carabi noo baahan uma baahnin annaga waxaan kaloo idinkaga codsanayaa ummadda Soomaaliyeed ilaah baan idinku dhaariyay si dhaqaalaha Turkiga uu kor uga soo kaco Turkiga wada ogtiin maanta dagaal baa dhinac walba waxa kaga galay Mareykanka oo u taagan isaga dawladda Islaama oo awood soo yeelataaba inuu burburiyo fadlan waxaad yeeshaan ganacsiga iyo inaad raacdaan isku day diyaaradaha Turkish Airways tigidhada ka goosataan si dhaqaalaheedu kor uga kaco inaad iyada xiriir ganacsi la sameysaan xoolaha carab loo dhoofinayo in iyada loo dhoofiyo in meel walba oo ay Soomaali dhaqaalaheeda ay ka keeni jirtay u wareejiso Turkiga maalgashi hadduu yahay mid dhaqaale hadduu yahay xoolo dhoofin wax walba in iyada lala xiriiro warshadeeda wax laga soo gato wixii loo dhoofinayo sida xoolaha iyo badeecadaha kale iyada loo dhoofiyo carabna in faraha laga qaado diyaaradaha Turkish Airways in la raaco cunaqabateen ha lagu soo rogo baan aanu qabaa wadamada carabta islaamka nala sheeganay ee aan waxba la tarin ee lugooyo iyo dibandaabiye ka shaqeeya wadamada yaryar ee saboolka ay soo koraya inay burburiyaan oo ay dhaqaalaha kala diriraan mooyaane maanta Turki hiil buu nooga baahan yahay sidoo shalay noogu hiiliyay Soomaaliya haddaad damiir leed oo aad diin leedin oo dad islaamatiin oo xishoonaysaan ku xirma Turkiga dhaqaalihiisa si uu kor ugu qaado ganacsigeena u wareejiya xiriirkiina safarada dibadda ah iyaga diyaaradahooda raaca wixii nin walba oo dal iyo dibad ka imaanayo diyaarad Turkiga soo raaca diyaarad kale ha raacin ganacsiga iyaga u wareejista wixii ganacsanayo xoolaha nool ee dhoofinay iyaga ha loo dhoofiyo waxyaabaha kale sida malmalka iyo waxyaabaha faleenka fooxa iyo waxa iyaga ha loo dhoofiyo waxaan qabaa carab ha laga gudbo war ilaah baa idinku dhaariyay carab ka gudba Soomaaliya carab ka gudba